السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتو عن وناكسن خيارتنا داونيساي هدي اي تامركي كوغو هوريسay fadlan dhiirigeli oo subscribe inoo saar hadii aad tiri mar kale dib u laabo gambaleelka furo ku soo dhawaada falanqeyn kooban oo aan ku sameynayo kulankii Arsenal ay sida dirqiga ay uga badisay kooxdaasi lagu magacaabo West Ham United inkastoo kulankaas ay guul ay gaartay Arsenal haddana meelo badan ayaa jira oo aan calaamadeeyay guud ahaan ciyaareedka kooxdaasi Arsenal waxa uu ahaa mid iska dhexdhexaad ah waliba ka hor intaysan gool ka dhalin waxa ku adkeyd in kubadda ay soo dhisaan oo weerar ay soo qaadaan waana ku adkeyd inta ay sameeyaan Arsenal dib ayaa ka haystay garabka midig kooxdaasi waxaana sahal ahayd in la jiro oo West Ham ay tagaan naadiga West Ham sidoo kale waxay ku wacnaayeen degdegsiimada iyo in afka hore ay u soo dhaqaaqaan laakiin dibka jira waxa uu ahaa in aysan bartilmaameed toos ah aysan ku sameyn goosha kooxda Arsenal qaybtooda ciyaarta isku balaarinta garoonkoodana aad ay u wacnaa dhanka Arsenal waxyaabahan arkay waxa kamid aha degdeg ma jirin oo waa ay deganaayeen daafacna xogaayar waxaan dhihi karaa si saxan umaysan istaageen guud ahaan ciyaartooyda kooxda Arsenal kulankan dhexdhexaad heer ah ay soo bandhigeen laga bilaabo Willian ilaa ay xidigii goolka baasay ee Aubameyang waxyaabaha kale qaybta labaad ciyaarta aan arkay waxa ay ahayd in kooxdaasi West Ham fursado badan ay khasaarinayeen waxayna ku tiirsanayeen kubadaha rogaal celiska Arsenal waxaan dhihi karaa kubadaha rogaal celiska waxay noqon karaan kuwa lagu dili karo hadii aysan ilgaara u yeelan daafaca kooxdaasi waliba qadka dhexe daafac kooxdaasi aadayna kooxda West Ham ugu dhiiranayeen inay tagaan goosha kooxda Arsenal markaan eegno ma jirin fursado ay abuuriyeen labadii fursado ay heleen gool ay u turjumeen waxaan dhihi karaa waxay ka faa'iideysteen fursadii ay qasaareen kooxda West Ham United guud ahaan kulankan inuu ahaa guul adag heer ciyaareed iska dhexdhexaad oo aan aad loogu qanci karin laakiin muhiimadu ay tahay in saddex dhibic ay qaateen naadiga Arsenal sidoo kale macal Arteta markaan eegno qaabka shaxda uu ku soo galay waxaan dhihi karnaa iyo waliba hanan ciyaareedka kooxda oo ahaa mid degan in afkaartiisa uu ku dhisay kooxdaasi ay ku socoto qaab wacan kaliya Arsenal umurta ayaan daawadayaal ku soo koobaya fadlan dhiirigeli oo calaamada subscribe-keeno saar sidoo kale Arsenal maxaa ka caawiyo guushan qaybta hoose comment-ka tag maxaad aragtay oo aadna calaamadaysay fi amaanillah wassalaamu calaykum